Assalaamu calaykum. Sidee u samayn lahayd dhiirigelin joogto ah maalin walba? Sababtoo ah waxaan wada ogsoonahay in qofka bini'aadamka ah uu u baahan yahay in la dhiirigeliyo. Dhiirigelintu waa dhaqaajiyaha naftaada. Sidee naftaada ku dhaqaajin kartaa? Sababtoo ah qofka bini'aadamka ah haddii uusan helin dhiirigelin joogto ah ma samayn karo wax waliba. Sababtoo ah dhaqaajiye ayuu u baahan yahay. Gaariga aad aragteen ama diyaaradda aad aragteen waxay u baahan tahay wax dhaqaajinayo. Waxa dhaqaajinayo waxay tahay matoorka saaran. Matoorka bini'aadamka lagu dhaqaajiyo waxaa waaye in qofka mar walba la dhiirigeliyo, la tuso awoodiisa iyo wuxuu qabtay. Sababtoo ah haddaadan naftaada dhiirigelinin waxba ma qaban kartid. Sidaas darteed waxaan jeclaystay inaan 2 qodob ama 3 qodob aan ka iraahdo waxyaalaha naftaada dhiirigelin kara kuna horseedi kara inaad maalin walba dhiiranaan wax walba ku qabatid. Midda koowaad soo qaato naftaada ku kalsoonow. Midda koowaad naftaada haddaad ku kalsoon tahay maalin walba dhiiranaan ayaad ku soo toosaysaa. Shaqo walbana waxaad ku qaban kartaa adoo dhiiran oo dhaqaajinaya dareenkaaga, aadan dareemeynin daalka iyo duruufta ku haysta waqtigaas aad shaqada qabanaysid. 2 qodobka labaad waqtigaaga ka faa'iideyso. Sababtoo ah waqtigaaga haddaadan ka faa'iideysanin oo aadan ugu talagelin, aadan u sameynin jadwal oo kuu degsan ama aadan u kala qodobeynin jadwal maalmeedkaaga ma gaaraysid hadafka adiga aad lahayd oo kuu degsanaa. Sababtoo ah waxyaalaha dhiirigelinaya qofka waxaa ka mid ah inuu qofka wax walba ay u leeyihiin jadwal. Midka saddexaad waxay tahay waxaa samaysaa yeelo aragti fog oo micnaha meel ku xiran. Kaliya ha yeelanin maalin walba 100 aragti ha yeelanin. Waxaa samaysaa 1 aragti, 2 aragti, 3 sameey, meel ku qoro, kadib isku dhiirigeli maalin walba inta ka xaqiijisay inaad gaartay. Haddii wax kuu dhiman yihiin beri dambe ayaad dhammaystiri doontaa. Laakiin waxaa samaysaa aragti fog yeelo. Waana mahadsantihiin saaxiibayaal. Bilaahi tawfiiq.